waxay u taagan yihiin oo inay gabadh ay gaari jecel yihiin kamaradii gaari jirtaan bay waxay rabaan ay iska duubayaan ayagoo siday doonaan ku dhahdo samee amba wiilkii sheekaystaan gaariyaasha dhexdiisii ayaa hablo yaraa lagu kursanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaashin filsan tanka nagala socodsiina waa dumarkaada channel. aad iyo aad baan idin salaamayaa, soo dhawaada. ugu horreyn haddaan nagu cusub tahay subscribe noo saar, hore haddaan nooga joog jirtay nala sii joog. videoga dadka heshay like saar, asxaabta la wadaaga wax ka faa'iiday wixii fariino comment noogu reeb. aad iyo aad baan idin salaamay, soo dhawaada mar labaad. waxaa inoo wadaa sheeko ka mid ah amba barnaamij ka mid ah barnaamijyadii hore inoogu socon jiray channelka. haddaad rabtid inaad ogaatid wuxuu yahay iyo soo socdo, nala sii joog, nala dhammaysa videoga. markii ugu dambeysay wuxuu inoogu joogay waxaynu ka hadlaynay gabadha hooyo gabadhaada u guuri haddii ay aragtid iyadoo macnaha guuri dhamaaday. waxaan maanta haddaba ka hadlaynaa gabdhaha talo yar siinaynaa. gabadhay marka aad maxay haday aad sheeko bilowdid amba aad rabtid inaad sheekeysatid, horta waxaad ogaataa ibni aadmi baa tahay, gabar baa tahay. waxyaabo ilaahay dadka u abuuray ayaa waxa ka mid ah in la guursado oo ilmo la dhalo. taas oo ay saas tahay haddana waxa weeyaan waxa laga rabaa in adig taxadar badan aad samaysid, waayo waqtigan hadda la joogo aad iyo aad wax u fara badan raggii amba wiilashii Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin inay gabadh ay xumeeyaan. taas bedelkeega maxaa adiga laga rabaa marka inaad taxadar badan samaysid, inaad markaad rabtid inaad sheekeysatid aanad cid kastaba aaminin, cid kastaba la sheekeysanin. kaaga daranee waad la sheekeysan kartaa, dhib ma laha, laakiin iska ilaalisid inaad baxid oo maxay haday guri u raacdid, gaari u raacdid, waxyaabo fara badan. mar kastaba ragga Soomaalida waxay dhahdaan dumarku way gaari jecel yihiin, gaari kaale gaari baan wataa haddaad tirahdid markii way ku raacayaan. iminkana awal haddii gaariyaasha inta laisku kaxaysto meelo kale laisku geysan jiray, iminka gaariyaasha dhexdiisii ayaa hablo yaraa lagu kursanaya. marka say doontaba ha u dhacdo, laakiin adiga waxaa lagaga baahan yahay taxadar badan inaad samaysid, inaad lugtaada ilaalisid oo soconin, socodka badan yaraysid, bixitaanka badan yaraysid. qofka markay waxaan ku dhahay aaladaha jira oo fududeynaya wax kastaba, taleefanka wada hadla, waxaa iska ilaalisaa in video call aad shidid. maxay haday wad ifasaad doontid baa haw ilaa masar xidhnaatid, maad shalmad wanaatid amba maxay haday garbasaar saa u taqaanid. saasay tahay inta video lagaa duubta caadi hadhow toole photoshop waa lagu samayn karaa. waxa kale kaaga sii daran qaarkood baa maxay haday kamaradii intay furtaan bay waxay rabaan ay iska duubayaan ayagoo siday doonaan ah. wixii ninku dhahdo samee amba wiilkii sheekaystaan bay samaynaysaa, dharka iska saar waxay rabto. waxaan leeyahay ilaahay ka baqda. sax waa run cid dadku ma arkayaan, laakiin ilaahay wuu idin arkayaa waxa samaynaysaan. gabar kastaaba waxaad ogaataa gabaray maanta marka walaasha oo gabar kastoo Soomaaliyeed horta waa walaasha, ogow inay walaasha tahay. gabar kaste oo Soomaaliyeed, gabar kasta oo muslim ah waa walaasha. ka soo dhawaad gabar kastoo Soomaaliyeed. marka maanta marka maxay haday aad aragtid gabar Soomaaliyeed oo la dhibaateeyay oo video laga keenay amba ayadoo ha iska soo duubto, maxay haday oo ninku ha ka duubto, ha u dirto baan ka wadaa, ama maxay haday ninka ha ka duubto. waxaad ogaataa gabar kaste oo maanta wax laga keenay in adigoo kale tahay. shalay toole maxay haday adigoo kale sharaf lahayd, maanta maxay haday la khiyaamay amba ha la khiyaamo oo ha iska duubto amba ha la khiyaamo ha la kufsado. waxaad ogaataa inay ku dhacday adigana ku sugi karto uguna dhici karto. marka iska ilaali inaad video duubtid, iska ilaali inaad kamarad furatid, iska ilaali in aad raacdo cagtaada hoos u dhig, fududee cagtaada ha fududeynin oo meel kastaba ha tegin, gurigiina ku ekow. dhibaato kaste oo kula soo daristay midda kale ka hadlay waxa weeyaan maanta haddii ay mar dhibaato kugu dhacdo oo maxay haday video kaa baxo sidii doonaba ha kaaga baxo, maaha inaad sii daba socotid. waxaa badan oo la arkaya gabdho waxaa lagu leeyahay waxa samaysaan keena video baa laga qabanayaa. video marka laga qabto wixii intaa ka dambe waa lagu rataageynaya amba waa lagu dhibaateynaya.
mar kastaba waxa lagu leeyahay qaarkood waxa lagu leeyahay lacag bixi qaarkoodna waxa lagu leeyahay mar kastaba video ii soo duub haddii kale videoga way horaan soo qarxin miyaanad ogeyn in fiidiyoyadu fara badanayaan mid haddii maxay ahayd xoog kaaga baxay xoog lagaaga duubtay amba lagu siray oo maxay ahayd adigu maskaxdaada aad soo mari weydo iska fududeyso iska duubtay maanad ogeyn haddaad sii wadid inuu kuga sii badanayaan oo maxay ahayd oo hadhow toole la odhan karo hadhow haddii videogaas lasoo qarxiyo oo mid kale oo la yidhahdo waxaan ka hayaa intaasoo video waxaa lagu arkayaa qof xumaantan caadaysatay macnaha qofkan waa la dhibaateynaya amba videogiisa si aanan loo keenin ayay maxay ahayd ayay waxaan u sameynaysa cidna meesha ma soo dhiganayso raalli bay ka ahayd qofka hal video baa dhibaato lagaga qaban karaa laakiin maanta dhan laguma celcelin karo baa meesha imanaysa marka waxaan idin sheegayaa haddii hal video uu kaa baxo oo khaldantid khaladka laguma sii socdo waa laga joogsadaa waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka muuminka 2 jeer god laguma wada qanino adigu sideed ku garatay markaa maanta markuu video kaa baxo ina maanta dhan video lagaaga dabarakaateeyo amba maxay ahayd lagu yeedho lagu dhahdo waa ku isticmaalaya mar kastaba haddii kale videoga horaa soo qarxin maanad ogeyn in mararkan dambe xataa video lagaa duuban karo oo hawsha sii badan karto waxaan idin rajeynayaa khayr iyo bashbasha barwaaqo in videoga sii badan ma rabo waxaan kusoo koobayaa gabadhay is ilaali video weliga ayuu kaa bixin video hadduu kaa baxo khalad kaa dhaco sidoo doontaba ha kaaga baxee ha kasii soconin ka istaag marka lagu dhahdo saas baan yeelaya haddaa saas yeeli weydid sidaad rabtid yeel dheh oo Soomaali been lahoo 4 cisho baa lagu yar wadwadi maalinta shanaad waa lagu iloobayaa laakiin marka videoyada sii badisid maalin kastaba video keentid ama maalin kastaba lagu isticmaalo maxaad reebatay weliga ayaa lahaa hal mar hadduu khalad kaa dhaco iska ilaali inaad khaladka kusii daba taagnaatid kusii socotid khayr iyo barwaaqo idin rajeynayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed is ilaaliyaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu videogana kala kiciya insha allah salaam